الله الرحمن الرحيم عيد وناكسن أنا وياسين عبد الجرا أنا فترها ورشة كعبابرو ما توحى حلقة كان عاي حفلة وين والله قلت لك على عيد وحى هالك شوي جاهلية مدح هذا يو معمولات هذا كل الجول هالك وحنا لفظ ده مروة قالية أو أهل قدوميها أوروبا وكا سوماليا إثيوبيا DDS marka wareysiir baan wareysanayna walaal waxa ay sheegtaa magacaada saddexan iyo degmada qiimo waxa la dhahaa Ifraax Axmed Abdullaahi waxaan ku magac dheeraa Ifraax Taraafiko ama Axmed Taraafiko baa la dhahaa Allah u naxariistay waxaan ka imid kilkshanaad gaar ahaan waxaan ka imid gobolkiisa Wardheer degmada la dhaho Booq baan ku dhashay ka imid ka shaqayn jiray aad baan mahadsantahay walaal maadaama aad hadda joogto qurbaha dalkan Sweden laguna magacaabay inaad tahay oo lagu doortay qof ka soo bixi kara aad tahay gudoomiyaha ururka haweenka Soomaalida Itoobiya DDS maxaad howlaha xageer rabtaa inaad ka balowdo ama ka qabatid maadaama ay lagu yiriin haweenka شيء أنا أقبله قرشها وحنا ربنا أقبله هدي إلهي إنه هوين بدن هذا نوانو الشيء هذا ندر قلين بقولي وذا هوين كيرجع يوين اللي يرى ذا عقاش وحي عقل له إنه ندر قليه ده أسمينا أكتيفيتي زمالين يهوي قالوا هاي إن يعني وعي قلين يدر قلين يود ودن كيجي أنكسر تقني أنا قمنا على ودن كان meel baa u dhalanay ku xisaabtamayna ku noqonayna bari inaan ayadii dawladda ha ahaato nabadgelyada ha ahaato dadka masaakiinta ku nool ha ahaato waxqabad ha ahaato inaan wadanka aan ka soo jeednay kilkshanaad u dharshay inaan wax u qabto dadkeedana isku dibirido wixii nabadgelyada sidii looga shaqeyn lahaa iyo sidii waxqabad looga shaqeyn lahaa iyo sidii dardargelin looga shaqeyn lahaa sidaas aan rabaa inaan la shaqeeyo ininkan saa isoo dabatay ma ku mahadsantihiin وانا إن لا شقين دونا سوى نفسنا هو عن هوين بدنا وانا هيا وان دتكنا ويب حان قبل كيا ود سويدن هان جوتنبرغ دمر بدن ببوحو كلك شنك سو جيدا لكن وحو باهيين يا رقبه يا دلن يربا يا وبنا لكن دردر قلن يا وعي قلن يا وحو باهيين وذا هذا iyo in dadkii loo sheegay in jaaliyad la furay in wax la sameeyo in wadanka horumar isbedelay oo madaxweyne fiican oo qabsaday horumar iyo wax fiican laga sameeyo marka dadkii waa loo sheegay waana u sheegi doonaa jaaliyaduna mid badan bay ahaan doontaa insha Allah oo xoog badan oo tayo leh oo ragga sida ugu soo dhintayna aad baan ugu hambalyeynaa aad baan mahadsantahay walaal hadda waxa qorshaha ka socda ama horumarka deegaanka wax ma looga taaban kartaa walaal adiga ku mahadsan qorshaha hadda ka socda mataqaana horumarka iyo nabadda ummadan madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamed Cumar ururo mucaarada banaanadan ay dadka been u sheegayaan gabdhaha dahab kaga furtaan ayagoo waxaan xoreynaynaa dalkii maanta waad aragtaa madaxweynaha horumarka asaga iyo wasiiradiisa horumarka ay ka sameeyeen deegaanka marka arrintaas adigu maxaad ka dhihilayd arintaas anigu waan arkay dad badan oo waxa la dhahaa ama dhalinyaro ah ama hooyooyinka waxa u badnaato dumarka horta sheekada ku badan tahay sax dumar badan oo waxaan arkay ku haya wadankii waan waxa la dhahaa qabsanaynayo waxaan sameynaynaa isha inaan noqono ismaamul annaga oo ona lafta ay wax sameyso waxaan ku dhahay maalin walba wiil yar baa la dilaa oo baadiyo jooga oo gaajaysan oo biyo haysan oo ku jiro tibay ku bixeen oo jirta ku baxday wax la xoreeyana ma arag هود كان بيكون هذا الانتقال بقى شو بنتا دلنا يركا إنكوا دلكي ودن كان شوقة وميلنا بدأ شوقة عنا وعروتي إني ممكن حيستان تذكر مساكين تهود كبشرة قاعد يسمع أباروها يعني وإن شفتوا كشيء وبنت وشيء لسان وإنه أنا سيني كداية ما هو قوارنا كوا ما هو بس كم مرنا مركزتكي قارنا ويسوتش العيان قارنا ولي ماشي كنجينا أنا ما باوح كشريان ودن ما حريسان بعد فرت سنة هيستي وإحنا منا قبل ولد الشمال كما دلنين ويركون انت مويانا marka abdina aad baan ugu hambalyeynaa wadanka wuxuu ka qabtay intaan ka soo maqnaa horta madaxweyne laga dhigay aad baan ugu hambalyeynaa wuxuu qabtay waan arkay universal baa kala soconay
sidaa inuu ku wado insha allah nabad iyo caafimaadna ugu barbaaro maadaama uu dalka iyo dadka dowladda deegaanka soomaalida wax badan oon ku ogaan inuu ka bedelay nabad ha noqoto arkay kuwa dibadda wacyigelin ha noqoto qurba joogta sida usoo dhaweeyaan arkay kuwa kale meeshaan joogana niyadda u dhismaysaa marka aad baan ugu hambalyeynaya marka maxaad ku dheeraa shacabkaada dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya aad kula dardaarmi lahayd iyo kuwa qurba joogta adoo soo gabagabeynayo waxaan kula dardaarmi lahaa inay ka shaqeeyaan nabadda horta koow waa nabadda ugu qaalisan